kulankani ka dhacay xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada Galkacyo ayaa ahaa sidii biyaha looga saari lahaa magaalada Galkacyo isla markaasina shirkadu ku guuleysatay ka saarista biyaha magaalada Galkacyo mashruuceeda ay u bilaabi lahayd hawlaha biyaha ka saarid iyo sahankeeda ay ku sameyn lahayd magaalada Galkacyo ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay duqa degmada Galkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugal saaka waxaan halka isugu nimid muxuu ahayd in la baaro ama la darso sidii maarta magaalada biyaha looga saari lahaa asal builders waxay qaateen hawsha ah sidii loo sameyn lahaa muxuu ahayd assessment ama baaris magaalada maarta biyaha looga saarayo muxuu ahayd waxaan rajaynayaa maarta in si fiican ay maarta magaalada u maraan waxaan rajaynayaa inay maarta shaqadii maarta looga baahan yahay oo runtii magaalada biyaha looga saarayo in ay maarta sameeyaan baan rajaynayaa waxaan leeyahay dadka shacabka ah runtii waxa weeyaan qoladaan hadda sameynaysa baarista waxay sameynayaan magaalada waa wada cabirayaan say u kala dheer tahay bay ogaanayaan meelo badan bay marayaan qalab bay wataan waxa weeyaan iyagu hawshoodu ma aha inay meel dumiyaan ama wado sameeyaan ama mataqaanaa ay wax kala sameeyaan kaliya baaris bay muxuu ahayto sameynayaan sida dhulku u kala dheer yahay meesha biyuhu u dhacayaan bay sameynayaan Engineer Yusuf Sheekh Cismaan oo ka tirsan shirkadda dhismaha asal ee ku guuleystay mashruucan ayaa isagoo fariin u diray bulshada dadka waxaan u sheegaynaa inaan anagu dumisyo midna shaqo ku lahayn mid waxa jirta ayaan laga didin meel kasta oo cabirayno meelaha qaarkood waxaan ku budanaynaa biro waxaan gelinaynaa rinji casr baan marsanaynaa ama derbi baan nabar ku qoranaynaa marka meesha rinjiga marayna ma aha dumisyo midna shaqo kuma laha waxa weeye bas numberkaas inaan bari markii hawshii la fulinayo in birta meesha gelinay la helo cabirkii laga qaato marka waxaa laga didin hawshii waxaan rajaynaynaa inaan si fiican u qabano idin kale waxaan ka baahanahay gacan iyo collaboration baa ka baahanahay Engineer Samatar Umar Maxamed maamulaha shirkadda dhismaha asal ayaa isaguna halkaasi ka hadlay shaqada qaabka uu qabanayno marka hore waxaan sameeynaa wax la yiraahdo topographic survey oo ah in magaalada biyaha qaabka u marayaan iyo dhulka sida uu kala sareeyo iyo mataqaana meelaha biyaha u dhacayaan waxyaalahaas oo inaan qaadno anagoo isticmaalayna qalab casri ah oo total station ah kadib markaan helno dhulka sida uu kala sareeyo oo daatada aruurino waxaan sameeynaa wax la yiraahdo processing oo ah in maapkii la sameeyo kadibna dhisaankii iyo qiimeyntii iyo sida mashruuca loo hirgelin lahaa in la sameeyo meelaha mar lahaayeen pipeska meelaha mar lahaayeen gunaanadkii engineer Maxamed Cabduqaadir oo ka socday ILO iyo GBLJ engineeradeeda ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waa projectskii loo targalay degmada 2016 ka qayb kamid ah uu noqonaya insha Allah hadii Ilaahay raado insha Allah anaga ka GBLJ ahaan engineerska insha Allah waxaan insha Allah waajibka u yahay inaan ku dabagalno company-gan hawsha qaatay shaqadooda iyo daatadooda inaan hubino oo aan quality-geeda iska hubino insha Allah degmadana waxa laga rabaa insha Allah inay shaqadii la fududeyso hadii uu guuleysto mashruucan biyo ka saaridda magaalada Galkacyo ayaa sahli doonta in badan oo biyaha ay fariisaan qaybaha muhiimka ee magaalada Galkacyo sida waxbarashada iyo caafimaadka xarumahooda ay shaqadoodu dib u socon karto Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda caalamiga SBC magaalada Galkacyo